macluumaadkan idin soo diyaarinana waxaa ugu waaweyn faahfaahin ka soo baxaya dagaal xubnaha al-shabaab lagu dilay oo xalay ka dhacay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. maamulka Jubbaland oo magaalada Kismaayo ka xiray cirka dhulka iyo badda sabab la xiriira doorashooyinka Jubbaland. wasiirka amniga oo kormeeray ciidankii al-shabaab ka saari lahaa gobolada bartamaha oo lagu diyaarinayo degmada Guracayl. ururka midowga Afrika oo maanta go'aaminaya kursiga qaramada midoobay oo Kenya iyo Djibouti u tartamayaan. shirka wada tashiga siyaasadda tamarta oo maalintii labaad ka socda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. dagaalka dhanaha al-shabaab oo laga dhawaaqay deegaano ka tirsan maamulka Hirshabelle. odayaashii dhabaan aaday al-shabaab oo loo diiday inay galaan magaalada Beled Xaabo ee gobolka Gado. dibaddana waxaa ugu waaweyn ciidanka iyo shacabka Suudaan oo dhisay golan madax bannaan. 20 bisha 8 Agoosto 2019 waana subaxnimo Arbaca ku soo dhawaada warkii oo dhan. Shabeellaha Hoose aan ku hormareenay faahfaahin ayaa ka soo baxaya dagaal xubnaha al-shabaab lagu dilay oo xalay ka dhacay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. dagaalkan ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada dawladda ay ku leeyihiin degmada Qoryooley ee koonfurta gobolka Shabeellaha Hoose sida ay xaqiijiyeen taliska booliska degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. taliyaha booliska degmadaas oo dalsan la hadlay ayaa waxa uu sheegay in 4 xubnood oo ka tirsan al-shabaab ay ku dileen dagaalkii xalay ka dhacay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose sida uu xaqiijiyay taliyaha booliska degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. sidoo kale waxa uu sheegay in tiro dagaalyahan oo al-shabaab ay dhaawac ku gaarsiiyeen dagaalkii xalay al-shabaab ay ku qaadeen degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. dagaalka ayaa ka dhacay halka laga galo degmada Qoryooley oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada dawladda ee ku sugan degmadaasi. taliyaha booliska degmadaas oo idaacada dalsan ee Muqdisho u waramay ayaa waxa uu sheegay in xubnaha al-shabaab ay ku dileen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkii xalay ka dhacay degmadaas. horta xagga dhankeygii waa soo gaareen malahan alxamdulilah wax dhibaato ma jiraan hal qof oo dhaawac fudud ah ee soo gaaray hal qof shacab ahna bal waa ku dhintay iyagana afar qof aan ku jiray hadda saacadan kula hadlaay oo aan dul teeganahay waa gartay 4 qof waa meedki 4 qof waa 4 qofna waa shabaab anaaba dul teeganba aniga dhankeygii hal qof aan dhaawac fudud soo gaaray أبغى تقول هذا نقول هذا أنا بطل تجمع الصبح هذين وعن ربع عالم كنا هنا صوب بندقه. واقرتي مركز تلي واحد يشك تاي الدجال قوة ودعي حد مجالات الجيب جدو واصل ده مركز. مجال الجوج أزواج حتى أنا أقول هذا مجال ده مجال الكلام مجالي وأنا الشقة ده هو إيه كمان ووالله قولين هنا مجال الشقين شوي مجال هذا كمان عن مجال كي حبط نيس كيانين شعبه أنا أسوأ شيء سؤال حبط كود عبي أو نيكا تكنتي مجال الواحد يعني كده أنا ملا taliyaha booliska degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose oo dalsan faahfaahin ka siinayay dagaalkii xalay ka dhacay degmadaas iyo qasaaraha ka dhashay wararka saakay degmadaas ka imaanaya waxay sheegayeen in xaaladdu ay degan tahay isla markaana goobihii ganacsi isku socodka gaadiidku ay si caadi ah u shaqeynayaan. maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka xiray cirka dhulka iyo badda sabab la xiriira amniga doorashada madaxtinimo ee Jubbaland. Xuseen Axmed Maxmuud oo warqadda Jubbaland ka soo baxday soo aqriyay ayaa warkan faahfaahinaya. guddiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo saaray amaro culus oo ku aadan sugidda amniga intay socoto doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland oo lagu wado in maalinta bari ay ka dhacdo magaalada Kismaayo. war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga amniga Jubbaland ayaa waxaa xalay lagu dhawaaqay in laga bilaabo taariikhda markii ay ku beegan tahay 20 bisha Agoosto oo shalay ku beegneed in la xiray dhammaan xuduudaha magaalada Kismaayo sida cirka dhulka iyo badda. sidoo kale guddiga amniga Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay warka ka soo baxay isla markaana lagu mamnuucay in garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo iyo sidoo kale gaadiidka badda iyo beriga in cidna ay ka soo degi karin isla markaana ay ka soo geli karin inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland. magaalada Kismaayo caasimada ku meel gaar ku ah Jubbaland ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta bari oo ku beegan tahay taariikhda 22 bisha 8 2019 in ka dhacdo doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland. sidoo kale warka guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaan heegan buuxa la geliyay ciidamada
amniga dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee ka howlgala magaalada Kismaayo. Sidoo kale warka ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaan goobaha muhiimka ah ee waa dhaqdhaqaaqyada magaalada Kismaayo aadka ugu muhiimsan la joojiyay dhaqdhaqaaqooda ilaa inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka Jubbaland. sidoo kale warka ka soo baxay Jubbaland ayaa waxaa lagu joojiyay dhammaan dhaqdhaqaaq kasta oo ciidan isla markaana waxaa ciidanka militariga Jubbaland lagu amray in ay ku sugnaadaan xiriyahooda ilaa inta ay ka dhamaanayso doorashada Jubbaland. magaalada Kismaayo caasimada ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland ayaa waxaa laga dareemayaa qabanqaabada doorashada maalinta bari ay ka dhacayso waxaana amniga uu yahay mid si aad ah loo adkeeyay iyadoo iska kaashanayaan ciidanka Jubbaland iyo kuwa nabad sugidda midowga Afrika ee AMISOM ee halkaas ku sugan. Washington wasiirka amniga Soomaaliya waxa uu kormeeray ciidanka loo diyaarinayo in al-shabaab ay ka saaraan gobolada bartamaha Soomaaliya kuba oo lagu diyaarinayo degmada Guracayl ee gobolka Galgaduud. wasiirka amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa waxa uu booqday ciidanka halka lagu tababaro oo ku yaala magaalada Guracayl ee gobolka Galgaduud isla markaana ciidanka uu halka dardaaran uu ku siiyay. way yartahay laba qof oo walaal meeshan ay ku jiraan waxa isugu timaadeen Soomaalinimo waxa isugu timaadeen in cadow qoriista aad ka sifaysaan deegaanada Galmudug sidoo kale wadanko dhan diyaar muutiina qoriista laga sifeeyo diyaar mutiin insha Allah balanteena waa saas aadaan ugu faraxsanahay gabdhaha iyo dhalinyarada halkan horteeda ka muuqdo rag dhalinyarada tihiin gabdho yara tihiin mustaqbal leedihiin qof walba waxa ogaataa meeshan uu ka soo bilaw saraakiish hadda inuu socoto qaar ka mid dugsiga ay tababar ugu baxeen haddana qaar waa janan qaarna waa korneelo haarna meel bay haystaan marka ogaada dadaalaha waa gaari doonaa waxaan la rabaa inaad dadaalka halka sii wadaan cadowgan gacan bir ku qabataan anagana ka xukuumad ahaan waxaan diyaarni lanahay wax kasta oo baahan tihiin inaan idin garab istaagno haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waana idin soo booqo doonaa inta badan waana mahadsantiin. wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayuu ka ahaa. ururka midowga Afrikana waxa uu maanta go'aan ka gaaraya kursiga qaramada midoobe ee Kenya iyo Djibouti oo tartamayaan oo maalmihii u dambeeyaba hadalhayntiisu dunida laga hadalhayay oo dawladda Soomaaliyana ay taageertay ka mid noqoshada Djibouti ee qaramada midoobe. Kenya iyo Djibouti ayaana isku haysta oo u tartamaya waxaana ururka midowga Afrika maanta ay go'aamin doonaan qofka ku soo baxay inuu ka mid noqdo kursiga qaramada midoobe. shirka wadatashiga siyaasadda tamarta ayaa maalintii labaad waxa uu ka soconayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyadoona halkaas uu ka furay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen. wariyaha dalsan ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Muqtaar Sheekh Aadan Dalmar ayaa warkan soo diray. shirkani ayaa halkudhigiisu ahaa shirka wadatashiga siyaasadda tamarta dalka waxa uu soconayaa muddo 4 maalmood ah. furitaankiisa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen, gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabduqaadir Shariif Sheekhuna Maye, wasiirada wasaaradaha tamarta maamul goboleedyada dalka, wasiirada wasaaradda tamarta dalka oo dhan Marwe Fawziye Maxamed Sheekh, madaxda shirkadaha biyaha iyo quwadda korontada. Imaan Cabdi Maxamed waa wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa uu faahfaahinayaa muhiimadda shirkan dowlad goboleedkiisu martigelinayso. wayba eed iyo dhanka faraxsana inuu nageeka barnaamij soo dhaweyn iyo siyaasadii korontada uu ku hadalna Baydhabo waa wal eed aan ka faraxno eed aan faraxsana wayba laha asxaabta saaxiibta ee wasiirada shirkan wali kala inkumiinsanaa geeka waa wayba waxa isbarasho dad aan gordaan mas'uuliyiin maamul goboleedyada wasiiradii yaa iska barani taasnafta guulu wayba xajeedii wayba laha insha Allah hadhawaada. Fawziye Maxamed Sheekh waa wasiirada tamarta iyo kheyraadka biyaha dalka waxa ay sheegtay in aysan abaaldareynin shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka soo shaqeeyay dalka xilligii uu burbursanaa isla markaana dawlad la'aantu ay ka jirtay kuwaas oo bixinayay adeega tamarta korontada iyo waliba biyaha. kaga hadlo hadal badan meeshan uma soo istaagin xaaladda guud ee tamarta dalka waa la socotiin inay korontada ay aad noogu yartahay baahidana ay sii kordhayso. markii la qiyaasay
korontada waddanka aan haysano waxaa lagu qiyaasay 15% inay korontada helayaan dalkoo dhan inay 15% uu helayo sidaas waxaa dareemaynaa baahi badan in loo qabo korontada dalka waxaan mahad ballaaran inta uga soo jeedinaa private sector-ka oo ilaa haddeertaan juhdi badan geliyey 30 sano waad ogtiin burbur badan na qabsaday maanta intaanba ayakaana soo gaarsiiyey aadaynu u mahadsan yihiin madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo isaguna shirkaasi furay ayaa waxa uu sheegay inuu maamulkiisa garab istaagayo siyaasadda wadatashiga tamarta dalka si adeega korontada iyo biyahaba uu u gaaro tuulo buulo ilaa iyo gareere iyo koritaanka dowladnimada ay soo koraysay intaba way la socdeen hal maalinna lama waayin koronto hal maalinna lama waayin biyo intaba ayaga u taagnaa oo ka shaqeynaya wax la iloobi kara ma aha saxna ma aha ayaga oo joogo oo awoodo oo ku filan in shirkado kale oo ajnabi ama banaanka laga keenay ay soo galaan dowladda inay maamusho siyaasadda iyo sharciga ay leedahay laakiin fulinta iyo shaqada shirkadaha private-ka in la gubaabiyo la dhiirigeliyo lagu soo dhaweeyo lagala shaqeeyo ayaga ay hawsha hayaan aadaan u soo dhaweynaynaa aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa shaqada fiican ay shacabku u hayaan waxaan jecelnahay koronto intaan raqiis ka ah oo tan ugu yara inay helaan shacabka Soomaaliyeed waxaan kaloo in ka rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraaho dadka kale oo aan soo gaari karin magaalooyinka inaanan magaalooyinka la keenin oo meesha ay joogaan ay ku helaan koronto si ay u helaan maanta tiknoolajiyadii waa horumartay nin kasta oo Soomaali ah meesha uu joogo kan beerta falanayo iyo kan xoolaha dhaqanayaba wuxuu u baahan yahay tiknoolajiyadaas telefoon uu haystaa nal buu rabaa charger uu u baahan yahay marka energy-ga tuulo iyo baadiyo iyo meel walba in la gaarsiiyo u baahan yahay kulamada wadatashiga wasaaradaha heer federaal ilaa iyo heer maamul goboleed ayaa shirkani maanta ka furmaya magaalada Baydhabo waxa uu noqonayaa kii labaad ee ciinkiisa lagu qabto iyadoo bishan gudaheedana magaalada Baydhabo oo ah caasimadda ku meel gaarka koonfur galbeed Soomaaliya uu ku soo idlaaday shirkii loogu magac daray ka faa'iideystayaasha mashruuca taakuleynta tiknoolajiyada dalka mukhtaar sheekh aadan dalmar telefishinka iyo raadiyaha dalsan Borshan Wiiney Baydhabo Jinna dagaalka dhanaha al-shabaabna waxaa looga dhawaaqay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo hoostaga maamulka Hirshabeelle waxaana ku dhawaaqista dagaalkan u yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada waa kooxda macawisleyda iraado ay ku dagaalameen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe sarkaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya oo faahfaahin ka bixinayay dagaalka ayaa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka dagaalyahanada al-shabaab ee ku sugan deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe guul lagu gaari karaa gobonnimadu waxay ku xiran tahay dhiigdaad geedka markii la tallaalo haddaan biyo lagu shubin oo aan la waraabinin ma baxayo gobonnimadana waa la mid waxaa nasiib darro ah in maanta nin jaysiga ka yimid afghanistaan mid laga keenay afrikaanka kale mid ka yimid iyo mid yurub iyo meljini laga keenay in maanta dadkii aad ka dhalateen iyo waalidkii idin dhalay iyo hantidiinni geed hoostiis in loo waaro lagu nafaqeeyo muxuu ahay sidii xoolihii lagu qaaro ayaan darro waay waxaan leeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed ha howlgaleen ha kaceen annagana waa garab taaganna haddii aan la idmo waana guulaysanayseen biidnillaahi kariim sidaas daraaddeed hal loo diyaar garoobo howlgal ballaaran oo cadowga lagu sufaynayo dhaqaaqan maanta aan dhaqaaqnay dib loo laaban maayo ilaa cadowga dadka ugu dambeeyaan ka saarna aad iyo aad mahadsantihiin inna waa dhaawac macawisleey saddexna waa dhimasho halka warkan aad ka dhageysanaysaan waa dalsan xarunta dhexe ee Muqdisho hogaamiyaasha militariga Suudaan iyo isbahaysiga mucaaradka ayaa dhisay golan madax bannaan oo hogaaminaya dalka muddo 3 sano ah oo kala guura isla markaana xukunka dib loogu celinayo xukuumad rayida golaha ayaa ka kooban 6 ruux oo shacab ah iyo 5 sarkaal oo militariga ka tirsan waxaana marka hore hogaanka uu qaban doonaa Saraye Guud Abdulfataax Abdurrahmaan Burhaan hogaamiyihii Suudaan ayuu xukunka kala wareegay kadib markii xilka xoog loogu tuuray madaxweynihii hore ee wadanka Suudaan Umar Xasan al-Bashiir golaha ayaa la dhaarin doonaa subaxa maanta ah
isla maanta oo arbacada gelinkii dambe ayaana la filayaa in la dhaariyo ra-iisul wasaaraha wadankaasi. saaka oo arbacaha ayaa lagu wadaa in 6daas xubnood oo hogaamin doona dalkaas la dhaariyo. sidoo kale isla gelinkii dambe ee maanta ayaa la filayaa in la dhaariyo ra-iisul wasaaraha cusub ee wadankaas. warka dalsanaad ka dhageysanaysan intaas ayuu ku dhan yahay. ciddii uu sheego awoodna u leh waxay dib ugu barbaaran karaan isagoo maqal qoraal sawiraba tabiishka internetkeenna ku leenay radio dalsan.com.